muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha ay tahay inaad samaysid ama iska ilaalisid si damaca ganacsigaagu uu u guuleysto insha Allah. muuqaalkan waxaan u kala qaybin doonaa 5 chapter oo mid waliba ay hoos imaanayaan waxyaabo muhiim u ah inaad sare u qaadid heerka guusha ganacsigaaga sidoo kalena u yareysid heerka fashilka. chapterka koowaad ee aan ku bilaabayno waa inaan wax badan ka ogaano bal adduunyada sidee ganacsigu u fashilmaa. sida aan hore u soo sheegnay waxyaabaha fashilka keena aad iyo aad ay u badan yihiin, balse waxaad fiirin kartaa masalan dhinacyada inta badan dadka ku soo dhaca in fashilku uu horseedo, sida masalan inaad lacag haysanin oo kale, in teknolojiyo xun aad isticmaalaysid, in teamkaagu uu xun yahay, in qayb sharciga ay ku hayso. dhammaantood markaad fiirisid waa qaybo yaryar ama percentage-ka ama heerka fashilka ay qaybta ku leeyihiin aad buu u yaryahay. fashilka ugu weyn meesha uu ka imaanayo waa laba arrin oo isbahaystay mar waliba oo labadaa keliya oo ka dhigmaya in 56% heerka fashilka ganacsiga bilowga ah ay sababtoodu noqonaysa keliya labadaas. midda koowaad oo ah alaabtan la keenay ama adeegan aad suuqa keentay inuuna xalinaynin mushkilad macaamiisha haysata, sidaa darteed oo aan loo baahnayn. adiga ayaa jeclaystay, adiga ayaa kula qurxoonaatay iyo wixii la midka. iyo arrinta labaad ee muhiimka ah inaadan ku fiicnayn suuqgeynta oo alaabtii ama agabkii ama adeegii aad adigu keentay suuqa aadan awood u lahayn inaad dadka kale ka raaridid, ka gadid, una muujisid qiimaha ay waxa kan leeyihiin. so labadaas arrin oo ah product market fit inaadan haysanin iyo marketing problem inuu ku haysto, labadaas arrin haddii qofka ganacsadaha uu iska xalliyo waxaad ogaanaysaa inuu haysto suuragalnimo ah amaba uu ka badbaaday 56% inuu ganacsigiisu fashilmo.